indhihi tartiib u kala yara qaaday markaasaan haddana maqlay ashhadu an laa ilaaha ila allah iyo jinkadiyo jubka yeeris waa yaabay waxaas dhahaa mar walba ku salaada u taagay hadda wuu aadaami jir ama aadaanka tahay haddana sidoo kale 3 mar markuu ku dhuftay ayaan orday oo qolkii ayay galay aabo meesha ku arkay wiil kale walaalkii ah cabdisaaq aadan halkan ka salaamaya isagana ayaa markaas ana ku ordo hurdada aan ka kiciyey aabo meesha ugu imaanay garab qabanay kiciyo dhahay biyo isiiya banaanka u bixinay sida caadada ahaydba salli iyo barkin meesha u dhignay waan yaabanaa waxa aabo markaas ku dhegan aabo la taahayo aabo wuxuu ahaa qof aad iyo aad u xoogan diyaarsan aad u dhisan caafimaad qabay waa yaabanaa marka waxa aabo intaas xanuunka gaarsiinaya oo weliba degdega ah aabo ugu dambeyn gaari ayaan qof deriska ah lagala soo orday marka walaalkayo waxaa dhacday in aabo markaan adiga 4 qof aan ku qaadnay oo aan gaariga saarnay ayaa waxaa dhacday culays fara badan aniga dhankaygana waan dareemay in waxaaba la itusaba aabo uusan sii noolaanay markuu gaariga lala sii cararayay anigana markii aan khaylo afka ku dhuftay markaan khayliyey aan aadka u khayliyey oo aan niyadeedana aan ka dhaadhiciyaba aabo inuusan naf iigu soo laabanaynin ayaa meeshii miirka iigu dambeysaba waxaan soo kacay aabo waxaan uu markaas la sakraadayay waqtiga wuxuu ahayd salaad subaxii ahayd deetana waxaan soo kacay aniga oo aan soo laabtay gurigoo aad loo wada buuxo rag iyo dumarba ay wada buuxaan saacaddana ay tahay adiga 5 saac duhurnimo meelahaas aabana weli loo dhowaan waayo ayeye ayaaba diidaba in aabo markaas loo gacan qaado ama loo dhowaado masameedkiisa la dhaqo ilaa aniga aan kasoo naaxo oo aan kasoo kaco asaga yaraanka ayaa marka aniga yaraan ayaa guriga u ahaa ayada ayaad jeclaysatay in aan aabo aniga isku dugo saacadda aan ka furo afka u daboolo indhaha aan u daboolo ugu dambeyn waa liila taliyey rag waaweyn oo meesha jooga ila hadlay aabo waxaa lahay liyo markaan nin weyn aan noqotay isaadkee aabana waxaa ku timaaday geerida laga duceysto mootulfajada ah isku day ayeyin inaad sabar siiso ayeyna hadalkeeda qaado ayeyna gees u bixi gurigana ragga ha loo banaya aabo siya u dhaqaan aabana u tegay ayay ii ogolaatay saacaddii ka furay isku dugay indhaha u daboolay afkii u daboolay labada lugood isku aadiyey ugu dambeynna rag kale ay hoosha galeen anigana ayay aan meesha ka waday aabana meeshaas ayuu ku tegay taxafiido waa gartay allah u raxmado haddana waxaa dhacday arrin kaloo ayada laftigeedu maaragtay xanuunkeeda lahayd oo ahayd in wiil walaalkaa ee muqdisho dhexdeeda lagu dilay oo 6 xabadood ay ku dhacday dabadeedna uu geeriyooday oo waqtiga aabbo uu geeriyooday asaga ay u dhexeeyeen 2 ilaa 3 isbuuc arrintaa laftigeedu arrin xanuun ayay ahayd nin yar baad ahayd weliba dhalinyaraa tahay culays fara badan baa kusoo food saaray 2 tiir oo waaweyn baa kaa baxay dhab ahaantii ayadana waa midda aan aadkaan ula yaabanahay daxafiido si iskugu soo aadeen aabo marka aan soo duugaynay oo aniga laftigeyga aan sabri waayey dhacdada ilaan aabo markaas anaa la joogo yarka kalena guri kalau lahaa oo iga weyn wuxuu ka mid ahaa raggii godkaba aabo in la galay carrada u dhoodhoobayey madax u saarayay mase dadka ay u dhidhiibayeen carrada in la dhoodhoobo markaas qofka meydka taakada looga dhigayo qofka aabihii gacantiisu ku duuga ayuu ahaa asagana axmed aadan cali allah u naxariisto 6 xabadood ayaa ninkaasi aabo ku dhacday oo anigana aan la yaabay oo aan aamini waayey markiina lasoo wacay ani yar kaloo walaalkii aan isla joogno subaxi guriga ayay aan ku haynaya awowe na la leeyahay ninkii walaalkiina ah halkaas ayuu yaalaa meydkiisii aniga waa aamini waayey gabar abaa walaashayga meesha ka carartay walaalkii aan meesha ku cararay mootooyin gaari la wada qaatay la wada baxay aniga waa aamini waayey mayaan dhahay macquul ma aha oo ma dhici karto waayo waan aad ma u yaraa haddana ma aaminsanayn in hal famil ee 2 qof mar ka bixi karto oo degdega weliba macquul ila noqon weysay waa iska soo kaco waan qubaystay wax caadiyan iska dhigay ilaa abuwe iga soo wacay walaalkay kale markuu guriga ka cararay oo meydkii walaalkay indhaha soo saaray asagoo xabadaha ku yaalaan kadib markuu soo wacay walaalkay asagana oo oynaya ilaah waa run meydkiisana halkaasuu yaala aad baan u naxay meeshaan ka orday meydkiisiaan dul tegey meesha askar fara badanaa dhoobneed familka qaar waa loo diiday inay arkaan asaga meydkiisa laakiin aniga waa ka biyo diiday waxaan go'aansaday ilaaba inaan arko meydkiisa inaan arko
indhaha aan saaro waan ku sabro waan iswaalay aada isku waalay askartu waxay dhaheen yarkan aad u yar yahay ninkanna xabado fara badan ay ku yaalaan waxaa laga yaabaa haddii uu meydkaas indhaha saaro in uu saso asagana markaasi si naxtin leh nafta uga baxdo ayagoo markaa sharciga qofka bini'aadanka ilaalinayaan waa ka biyadiidi waa is adkeeyey waxaan xasuustaa in nin askariya jarnaal ah oo garabka inuu iga qabto u dhaha soo daaye inuu dhahay muu adkeysan kartaa walaalka oo xabado ku yaalaan oo meyd